toddobadii bisha Abriil sanadkii 1875, wadaad Kirishtan ah oo shaqaale ka ahaa kaniisadda Shalford ayuu Rabbi ku manaystay wiil aad u qurxoon, wuxuuna magac uga dhigay Marmaduke Buckshot. Wiilkaas hooyadiis waxay ahayd gabadha u dhalay Admiral Donat, oo ahaa mid ka mid ah hogaamiyayaasha ugu waaweyn ee badda ee boqortooyada Britain. Marmaduke intii uu yaraa waxaa ka soo muuqday calaamadaha caqli badnaanta iyo firfircoonida. Markii uu qaangaarayna wuxuu aad u jeclaaday barashada luqadaha ajnabiga ah. Aabihiis ayaa markaas u diray magaalada Newcastle, halkaasna wuxuu ku bartay luqadda Faransiiska. Kadib wuxuu aaday Talyaaniga, halkaasna wuxuu joogay waqti badan oo noloshiisa ah. Wuxuu aad u bartay luqaddii Talyaaniga. Markii uu u laabtay waddankiisa, wuxuu ku dadaalay barashada luqadaha ajnabiga ah. Wuxuu bartay Isbaanishka, kadib wuxuu jeclaaday barashada luqadaha bariga. Geerida aabihiis kadib, hooyadiis ayaa waxay u dirtay bariga. Arrinkaasna wuxuu jaanis u siiyay inuu daalacdo cilmiga Islaamka. Wuxuu ku dhex milmay Muslimiinta, aadna wuu ula dhaqmay. Wuxuu bartay luqadooda iyo dhaqankoodaba. Xiriirkooda ayuu la yaabay iyo qaabka ula dhaqmaan qofka Soogalootiga ah. Kadib wuxuu u guuray Masar sanadkii 1904. Wuxuu daraaseeyay xaaladaha Muslimiinta. Wuxuu u daraasiyay si qoto dheer. Wuxuu u fikiray si xor ah, isagoo meel iska dhigay qusacbalaadka iyo been abuuradka laga faafiyay Islaamka. Wuxuu yaqiinsaday waxa Muslimiinta kalsoonida iyo deganaanta siiyay inuu yahay mabaadi'dooda iyo diintooda ay ku adag yihiin. Indhayn iyo daraasayn uu ka sameeyay Masar iyo waddamada Muslimiinta ah kadib, sanadkii 1906 wuxuu qoray kitaab uu ciwaan uga dhigay Xukunka Shucuubta Dhulka Barakaysan. Sanadkii 1909 wuxuu alifay kitaab kale oo ciwaan uga dhigay Dooxada Boqorada. Isla waqtigaas, qaar ka mid ah wargeysyada caalamiga ah ayuu ku faafiyay maqaal uu ku difaacay Islaamka, isagoo ka bari yeelay been abuuradka ay ka faafiyaan cadowga diinteena suuban. Kadib wuxuu u guuray dhulkii khilaafada Islaamka ee Cusmaaniyiinta. Wuxuu la xiriiray culamo badan. Kadib ayuu go'aansaday inuu muujiyo islaamnimadiisa iyo iimaankiisa xooggan. Diinta Islaamkana inay tahay diinta kaliya ee daaweyso mushkilaadka bani'aadamka. Magaciisa wuxuu ka dhigtay Mohammed Marmaduke. Mohammed wuxuu alifay riwaayado iyo buugaag badan oo la daabacay marar badan. Riwaayadihiisa caanka ahna waxaa ka mid ah riwaayadda la dhaho Saciidu Sayaad, Cambar, Barfuul, Baytu Axlaam. Sanadkii 1913 wuxuu alifay kitaab uu ciwaan uga dhigay Haweenta Xijaaban. Sanadkii 1920 waxaa lagu wacay inuu noqdo tafatiraha wargeyska Bombay ee Hindiya. Sanadkii 1927 waxaa looga wacay Imaaradda Hyderabad oo ka dhisnayd Hindiya si uu qayb uga noqdo wargeyska thaqaafada Islaamka. Wargeyskaas wuxuu noqday mid soo jiito indhaha dadka. Ahmiyadiisana waxay gaartay heer ay ka qayb qaataan 70 shaqaale jaamacadeed ah. Markaasna maamulkiisa waxaa la wareegtay Imaaradda Hyderabad. Baxthiyadii muhiimka ahaa ee lagu faafiyey wargeyskaas waxaa ka mid ahaa baxthi ciwaankiisu yahay Thaqaafada ama Kaljarka Islaamka, iyo baxthi kale oo ciwaankiisu yahay Tarbiyada Islaamka. Waxaa la faafiyey 1927. Mohammed Marmaduke erayadiisa cajiibka ah waxaa ka mid ah: ma jirto nimcooyinka adduunka nimco ka weyn nimcada islaamnimada. Waxaa ku arkaysaa xaqaa'iqda adduun iyo aakhiraba. Alle ayaa noga mahadinayaa nimcadaas weyn uu ila jeclaaday, taasoo i siisay farxad dhab ah.